mooyinka deegaanka laguna diyaarinayay qorshaha dakhli ee sanad miisaaniyadka 2010 ee degmooyinka iyo maamul magaalooyinka deegaanka ayaa ka furmay madasha shirarka ee Qaryaandhoodaan wariye Faarax Cabdi ayaa warbixin umuurtaas ku saabsan soo koobaya waxaa ka furmay magaalada Jigjiga gaar ahaan hoolka shirarka ee Qaryaandhoodaan kulan lagu qiimeynayo waxqabadkii dhinaca dakhliga ee degmooyinka iyo maamul magaalooyinka deegaanka Soomaalida Itoobiya ee sanad miisaaniyadka 2009 iyadoo dhinaca kalena kulankan lagu diyaarinayo hirgelinta qorshaha dakhliga degmooyinka iyo maamul magaalooyinka deegaanka Soomaalida Itoobiya ee sanad miisaaniyadka 2010 ee tirsiga taariikhda dalkeena Itoobiya kulankan qiimeynta oo hogaaminayeen mas'uuliyiinta sare ee wakaalada dakhliga dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay kamid ahaayeen Maariyo ku-xigeenka wakaalada dakhliga dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdifataax Maxamed Cabdi iyo Maariyo ku-xigeenka wakaalada dakhliga deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Xasan Cali ayaa waxa ka soo qayb galay kulankan qiimeynta dhammaan maareeyaasha wakaaladaha dakhliga degmooyinka iyo maamul magaalooyinka deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana furitaankii kulankan ugu horeyntii ka hadlay Maariyo ku-xigeenka wakaalada dakhliga dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdifataax Maxamed Cabdi oo ka warbixiyay in kamira dhalinta qorshayaasha kobca iyo isbedelka dhaqaale ee deegaanka ay lafdhabar u tahay meelmarinta awoodaha fulinta waajibaadka shuruucaha dakhliga wuxuuna sheegay Maariyo ku-xigeenku in kulankani qiimeynta diiradda lagu saarayo waxqabadka iyo fulinta qorshayaasha u dejisnaa wakaaladaha dakhliga degmooyinka iyo maamul magaalooyinka deegaanka Soomaalida Itoobiya sanad miisaaniyadka 2009 ee tirsiga taariikhda dalkeena isla mar ahaantaana la isla meel dhigayo fulinta qorshayaasha dakhliga ee sanadka 2010 isagoo u sheegay mas'uuliyiinta wakaalada dakhliga ee degmooyinka iyo maamul magaalooyinku ay si cadcadaan iyo isla xisaabtan leh u soo bandhigaan warbixinta waxqabadkooga shirkan aan soo gudnay waxa weeyaan qiimeynta warbixintii 2009 in degmo walba ama maamul magaalo walba uu soo dhigo qorshihiisu wuxuu ahaa 2009 wixii uu qabsoomay waxaan qabsoomin iyo diyaargarowga qorshihii 2010 sidaan ugu diyaargaroobi lahayn isla mar ahaantaana macnaha dhaliilihii iyo caqabadihii jiray 2009 si aan soo noqonin in ay gashi inoo noqdaan waxna aan naga barano iyadoo guud ahaan muddo 7 cisho ah tababarad ku soo jirteen isla mar ahaantaana aan aaminsanahay inuu noqon doono mid aad wax ka baran doontaan loona baahan yahay macnaha tababarkaas inuu noqon mid halkan dad goobtii aad ku qaadataan aydan halka kaga tagin oo noqdo mid shaqadiina ka dhex muuqda isbedel weyn ka keenay 2010 hadii Ilaahay yiraahdo kulankani qiimeynta ayaa inta uu socdo waxa ay mas'uuliyiinta dakliyada degmooyinka iyo maamul magaalooyinka deegaanka Soomaalida Itoobiya ku soo bandhigi doonaan warbixinta waxqabadkooda taasi oo laga waayo aragnimo qaadanayo si loo